masaxba in airportka laga celiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta waxaa laga celiyay airportka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho isaga oo ku sii wajahnaa magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Madoobe. Kismaayo waxaa ka dhacday doorasho jamhadaysan oo sharciga iyo dastuurka dalka u yaala baalmarsan. haddana waxaa lagu qabanayaa caleemasaar jamhadaysan. dawladdu waxay go'aan cad ka soo saartay inaysan aqoonsanayn maamulkaas. Axmed Madoobe waa nin khaa'inul wadan ah. waxaa garab siinaysa Kenya oo inagu haysata baddeena. taas oo quudaraynaysa inuu badda Soomaaliya uu wuxuun uga soo luflufo. marka aanu soo noqono Shariif Sheekh Axmed, maxaa ku kalifaya arrin noocaasa in uu faraha la galo isagoo ah madaxweyne dalkan soo xukumayay muddo 4 sano ah, haddana quudaraynaya in uu mar kale hogaamiyo Soomaaliya? maxaa ku qasbaya inuu baalmaro sharciga dawladda haatan joogta? sharciga laga soo saaray Axmed Madoobe iyo dawladdiisa jamhadaysan waa mid lagu ilaalinayo badda, xuduudaha iyo sharafka qarannimada ummadda Soomaaliyeed. waa sharci diidaya in si qayxan iyo si qarsoonba looga qowleysto dhulka Soomaaliya. waana sharci qabanaya qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah. Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa muwaadin Soomaaliyeed, waxaana qabanaya sharciga qabanaya hooyooyinka Soomaaliyeed ee laga xayiray in ay si toos ah uga duulaan Kismaayo una tagaan Kenya. iyaga oo ixtiraamaya ilaalinta sharafka iyo qarannimada Soomaaliyeed ay raali ku yihiin in ay soo maraan Muqdisho. marka Sheekh Shariif muxuu kaga duwan yahay hooyooyinkaas? waliba haddii uu u tartamayo in uu dalka majaraha mar labaad u qabto, miyaysan ahayn in uu dadka u noqdo tusaale wanaagsan oo sharciga dalka u yaal ilaaliya una hoggaansama? sharcigu ama ha khaldanaado ama ha saxsanaado, waa wax laga doodi karo, waxaana jira hay-ado sharci dejin. laakiin sharci waa sharci, waana waajib in la raaco. dawladda markaas joogtana wixii ay soo saarto oo sharci ah muwaadin kasta wuu qabanayaa. haddaadan adigu maanta hoggaansamin oo sharciga xata jooga aadan u hoggaansamin, sideed ku rajaynaysaa bari ka maalin in adigana lagu hoggaansamo maadaabaad rajaynayso inaad dalkan madaxweyne ka noqoto? aniguna waxaan leeyahay sidaan codkayga u siin karaa qof taageeraya shakhsi khaa'inul wadan ah. tilmaamaha culaaqaale tuura oo nacaye والله أيضا قبيلكيو كبحا وحاتسقاديني توفيق دا خير كليوا لابو تناداي تحريبا كل شدن لابو ترتري تابدينا فيه tilmaamaha culaaqaale tuura oo nacaye turta caalanka saarto marqura tiirsha qarankeena qof waliba wixii uu taraa